بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سؤال ما عدا waxay ula jeedaan laakiin waxa jira ruuxa markuu xoolo leeyahay oo uu naftu qabato dhiman rabo xoolihiisa waxa loo ogol yahay inuu dardaarmo 3 meelood 3 meelood hal meel ah ثلث مقرأت مثلا هذه أي حوله سيين مثلا 9 بقول مركز 3 لو قيبي غير نغني ماشي 3 بقول سما 3 بقول وصدقيسان كرا ودردار مكرا 6 بقول كلا دحل واحد هدو حول ليه انت والروح النولي هو عافيمات قبو حوليس وصدقيسان كرا لكن مربع هدو حنون صدو وحلو قول يا انو دردارمو 3 meelood marka loo dhigo hal meel ah iyo sadaqaysan ka dardaarmi kara marka laga yaabo inay taas si khalad u fahmeen ma garat midaas oo dardaaranka baa laga yaabo inay si khalad u fahmeen haduusan xoolaba lahayn maxaa laga bixinaa isaga xoolaba ma lahayn dadka xoolaha leh ee dardaarmi raba ayaa loogu talagalay thuluthkaas ama haduusan xoolo lahayn yani wax weeyaan Allah uu kaalmeeyo soma isaga u baahan wixii lagu aasi lahaa iyo qaabkiisii u baahan markaan dhinto hebel iga simuule xoolaha isagu ma laha soma aduu kule iga sadaqee oo ilmihiisii waa ka sadaqayn kartaa sadaqa caadi adaa la baxaya oo waalidka oo dhintay aad baari ugu sameynaysaa ama ruuxay saaxiib ahaayeen ama ruuxay qaraabo ahaayeen ayuu ku leeyahay lacagtaasi ama xoolahaasi marka inaad dardaarankii aabaha fuliso ama hooyada way fiican tahay laakiin ayagu xoolo ay leeyihiin ma markaas waa xoolo ay ilmaha leeyihiin iga bixi igi sadaqay macna taas kala waa naam عليه السلام سؤال شهرة أو كسب سنتمها الروبية عدادي مدوبي سما لبري كرا جوابتي ذو حوي ومسألة خلافية علماء اسكو خلاف سيه مسألة الإسلام اللي جاي معها علماء قالوا لهم وحرام قالوا وحي إليهن ما هو مكروه قالوا وحي إليه ويسكبنا أنت حديث باتشرا النبي صلى الله عليه وسلم أضيع الروبي ويرد كبدلا مدوغنا كإلى عليه وكفوقيه حديث كاسا أصلوه قل يهديدا حديث كيما مركب معنيه سينا لقى مرمياه سجنانتي سنة لقى مرمياه صحيح مسلم بكويا لا لكن وحا لقى مرمياه جملة مدوغا كفوقيه ما هذا النبي به ميسى وهذا الصحابي وقدره يا لقى مرنسيه حديث كينا ولا مرنسيه معناه وفائدين يو ما حرام وفائدين يا ما كراه فائدين يعني ولا مرنسيه دنك كلا waxaa jira ila 5 saxaabada kamida oo ay ka sugan tahay ama madoobeysada inay isticmaali jireen ama inay fasaxeen saxaabadii nabiga sallallahu alayhi wasallam halkaas ay marka waxay ka timid culimadu inay isku khilaafaan qaar yiraahdaan dib male qaarna yiraahdaan waa xaraam masalada marka lama goyn karo markaas oo kale sidaas oo kale markay tahay oo daliilkeedii iyo wixii loo xuskanayo xogaa uu hadalkaasi galo masaa'isha waxay iska mid tahay ijtihaadiga ah oo aan la adkaynin bay ka mid tahay hal mar bay la isla ogol yahay inay xaraan tahay halka maray xaraan tahay waa goorma nin oday ah ama nin dhalinyaro ah noqotimo ku xirroobeen ayaa inuu guursado raba gabadh yar buu raba inuu guursado ama islaan inuu guursado raba markaas timaha u madoobeystay يا تيمو مدوبيستي محو ربا marka inuu siro Soomaa inuu muujiyo inuu timo wada madow yahay sida lagu guursado taa qish iyo khiyaana ku jirta Soomaa taa wala isla ogolayna xaraanta
laakiin markan kale waa mas'alo khilaafkaas ku jiro laakiin waxa dhihi lahaa waxa ka fiican madoobaysada waxa ka fiican midan la yiraahdo midabka la yiraahdo brownku wax weeyaan waqtiga nabiga waa la isticmaali jiray midabkaas katan baa la dhihi jiray isay khilaaf kuma jiro uu banaayahay waa noocee waa guduud yar iyo madow isku jira waay ruuxu markuu ka fogay waxaad moodaysaa inay timihiisu madow yihiin markuu ku soo dhawaadana casuus baa ku jira tan noocaas oo kale taa iyada khilaaf kuma jiro waa banaan tahay taa iyo guduudka labada khilaaf kuma jiro madowga oo dikhda oo timaha sidii ilaahay u baray ka dhigaya ka way midka muran ku jiro oo hadal ku jiro marka inaad kaga kaaftootaan baa fiican brownka oo kale hadaad isticmaashaan odaynimadana waxoogaa way ka yar khafiifin ya mas'alo wax lagu siri karana ba Allah idin barakeeyo mas'alada qodobka kale ku saabsan sakada ku saabsan haddii guriga waxa kaaga soo baxaya uusan adigiiba kugu filayn adaa saka u baahan saka aad bixisay iska daayadaa u baahan saka lagu siiyo guriga si ahaantiisa lafihiisana lagama sakeeyaba guriga lafahantiisa lagama sakeeyo waxyaalaha aan iibka u oolile wax soo saara laakiin iyaga lafahooda aan la iibinaynin kulligood iyaga laftooda saka lagu bala laakiin waxay soo saaraan hadday dhigmaan qiyaastii sakadana gaadhaan sanadna u soo wareegaa laga sakeeyaa waxaa ka mid ah baabuurta waaweyn ee la rarto ya baabuurta waaweyn ee la rarleeyo tareelayaasha lagu shaqaysto soo ma arkin baabuurka lafahantiisa laga sakeyn maayo laakiin wuxuu soo saaray ma dhigmay sanad ma u soo wareegay halkaas la fiirinaya wuxuu soo saaray hadayna waxba ka dhigminna ayadana saka laguma leh waa wala isticmaalayba baabuurtaasaa ka mid ah basaska ka mid ah warshadaha ka mid ah soo ma aragtay yani guryaha la kireystay baa ka mid ah lafahaantooda saka laguma laha wixii ka soo baxay haddaad biilatana saka laguma laha naam barakallahu sheekh sugiya barakallahu namba weydiyay wuxuu yiri taqwa saako bangiga la yiraahdo taqwa saako maxay tahay degmashadiisa lacagta maxaa say u shaqeynay bangiga maxalaalba masaarba say way taqwa saako waa muxuu ahaa iskaashato leh Soomaaliga iskaashato dadku ay lacagaha dhigtaan markay lacagaha dhigtaan kadibna lacagtu markay qadar gaadho muddana taalo ayaa waxaa la siinayaa dayn baa la siinayaa muddo uu ku soo celiyo damaanadna waa laga dhigayaa wax commissionna way ka goynayaan oo khidmad shaqadu ay ku socoto oo xafiisyada iyo shaqaalaha iyo waxaas lagu wadana way ka goynayaan marka hore lacagta dhigayso iyo markaad qaadanaysaba waxbay ku saarayaan marka shariicada ma waafaqsan tahay mise way khilaafsan tahay maalin dhaweyd baan la fadhiisanay aniga Sheekh Maxamuud Shible qoliyaha gacanta ku haya macluumaad fara badan ayayna siiyeen kadibna mas'alada waxaan ku nidhi baaris baan ku sameynaynaa way naga warsugayaan inaan go'aankii siino welina baxtigeeda waxba noogu dhiman markaan kasal gaadhno ayaan insha Allah ta'ala dadka u sheegaynaa hadday wax ka khaldan tahayna diyaar bay u yihiin wixii ka khaldan nala saxa say noo sheegeen marka annaga xagganaga aan weli masaladii aan kasal gaadhin maadaama marka wax noogu dhiman yihiin waxba kama dhihi karo naam alayhi salaam su'aasha hore oo ku saabsan lacagta aad ku daynsatay shilin Uganda ee aad ku guday shilin Kenya waxba ka khaldan sida saxdaana wax weeye hadhow markaad u gudayso ama shilin Ugandadaad ku qaadatay ku gud
ama haddaad ka maarmooday inaad shilin Kenya ugu guddo waa in aan sicirka aad sarifka aad ugu sarifi doonto labada lacagood la isugu sarifayo waa inaadan horey uga sii heshiinin markii ay gaadho inaad lacagtoodii u soo dirayso markaas sicirka uu yahay sarifku waa inaad ku siiso oo مثلا dayntii inaad gudaad gaadhay bil ka hor baad qaadatay waxay ka sugayaan kugu leeyihiin waa inaan shilin Kenya noqonin waxay kugu leeyihiin waa lacagtaad qaadatay nooceedii waay shilin Uganda ka sugayaan laakiin waqtigii markii la gaadhay ayaa waxa tiri war ma yeeshin waxaan idinku siinayaa Kenya bas sarifku maanta meequu jooga intaasuu jooga sida markaad ku heshiisaan markaaba waa inaad u dirto ma fahanti markii hore haddaad ka qaadanayso haddaad ku heshiiseen shilin Kenya lagu siin doontaa ma banaana laana waa sarif dayni gashay waay haddii intaad mar dambe ku heshiiseen lacagtii aan shilin Kenya u bedelo isla marka aad ku heshiiseen aadan bixinina iyadana riba galaysa salada ma fahanti salada labaad wax weeyaan shidaalka markaad soo shubto oo meeshii lagu diray shidaalka geyso waxa yarkay ku soo haray gaariga ama bayb ku soo haray waxa iskale dadkii shidaalka iska lahaa magarat aduna xaqi darawalnimadaada aad leedahay haddaad mushaar qaadanaysay mushaarkaagii baad leedahay haddaad allowance kala qaadanaysay allowance-gaagii baad leedahay laakiin shidaal wixii ku saabsan oo lagu soo dhiibay dhibicina ha noqotee dadkii iska lahaa baa leh hadday wax soo noqdaan hadday wax ku kordhaan wixii aad sidaa ku qaadato si khaldan ku qaadatana waxay noqonaysaa khayaano iyo xaraam bay noqonaysaa waana ogsoonahayo darawaliinta in yaroo ilaahay ka baqaysa mooyee halkaa xoolo badan bay ka sameeyeen warkeeda waa haya hadduu idan ka qaado dadkii xoolaha lahaa ay u fasaxaan dhib ma laha waa fahmay طيب waxa ku soo haray ma intii madib bay kaga soo darmadeen soo shidaalkii hore un maaha waa shidaalkii hore way shidaalku dad baa iska leh laba mid way adiga in lagu fasaxo iyo in dadkii ilaah u celiso labada mid way laakiin wax dhexda laga saari karo haba yaraatee ma jiraan hada koorba meesha la yiraahdo muxuu ahaay Zambia aan tagnay dacwo sidan oo kale aan u tagnay nin waxa jira darawal ahaan jiray oo sida shidaalka baabuurta dhexda markuu sii socotay iyo shidaalka wax ka iibsan jiray ninkii xooluhu ka yeeshay wixii saddex baabuur markuu marayo oo ka iibsaday waxaas ayaa ninkii ilaahay qalbigiisa hanuun galiyay uu yimid su'aal buu weydiisay sidan oo kale waxa loo sheegay inay xaraan tahay baabuurtan ka iibsadayna iyaguna waa xaraan oo maxaan sameeyaa sadaqe baa leeyahay baabuurta uu go'aansaday inuu bixiyo xaraanta iska gudo oo ma saddex baabuur oo waaweyn oo ku soo fiirinayaad adiga bixi karta imtixaan bay noqotay asagii uu go'aansaday laakiin islaantiisi baa intay soo istaagtay waxay tiri ninkan uu waalan yahay la quraan saaro magarat marka hore waa fiican inaad ka taxadarto oo aad isku daydo xalaasha inaad ku gaabsato xolahaas waxa iska leh dadkii shidaalka lahaa haba yaraato iyagu haddayna ogolaanin si kale lagu ma qaadan karo naam shiicadu waa nooc waa gaalo
noocna waa muslim noocna waa la isku khilaafsan yahay iyaga laftooda intaasoo madhab ah ma garad kuwa gaalada ah ee shiicada ah waxaa ka mid ah ismaaciiliyadoo kale waxaa ka mid ah agakhaniyiinta agakhaantan aad arkay asalkeedu waa shiico waxaa ka mid ah qoladan nusayriyada la yidhaahda ee suuriya ka taliya calawiyiinta la yidhaahda ee sunniyiinta hadda baabi'inaya waa shiicaday ka tirsan yihiin shiicada waxaa jira dawaa'if iyo kooxo iyo madaahib gaala ah hadday noocaa yihiin gabadh muslimana ma guursan karaan waxay qalaanna waa xaaraan shiicada qaar sunni qaar waxaa jira muslim ah la isku waafaqsan inay muslim yihiin waa qaybta nimanka la yidhahdo zaydiyada waa nimankan yaman u badan shiicada yamaneed kuwan ma aha xuutiyiinta ma aha xuutiyiintu iyada waa eeraan fikradda eeraan bay qabaysan waa raafida la yidhaahdaa laakiin niman waxaa jira yaman u badan oo la yidhaahdo zaydiye la yidhaahdo marka nimankaasi waa muslimiin maya kusoo wadaa nimanka waa muslimiin gawracooduna waa saxayaa guurkooduna waa saxayaa nimanka khilaafku ka jiro waa nimanka la yidhaahdo raafidada oo eeraan iyo wixii ku madhab ah raafida la yidhaahdaa kuwa iyaga ah culimmada qaar badan waxay qabaan inay gaalo yihiin qaarna waxay leeyihiin warmay caamadooda aan waxba garanayn iyaan la gaalaysiinin qoladaana hadal baa ku jira marka inka shiiciga ee gabadha muslim sunniga isu qariyey yani shiicada noocuu ka yahay in la fahmi baahanta gawraciisu inuu bannaayo inuusan bannayn nooca uu shiicada ka yahay in la fahmi u baahan tahay taasay ku xidhantahay amaa axmediyada nimanka la yidhaahdo ayagu shiic ma aha axmediyadu qaadiyaaniyaa la yidhaahdaa ayagu waa gaalo muran la'aan waana nimanka qaba nebi maxamed inuu nebi ka dambeeyey sala allahu calayh waalihi wasalam nin oo hindi ahoo axmed ghulaam la yidhaahdo mirza oo ingiriisku waagu dhulkaasi gumaysanahay uu sameeyey ingiriiskaa sameeyey nebinimuu sheegtay wuxuu yidhi nebi maxamed baan ka dambeeyey axmed baana lay dhahaa maxamedna khaatim nebiyiin buu ahaa anigu laakiin axmed baa lay dhahaa halkaa kala sarbaxay ayay rumaysan yihiin oo nebi ah oo nebi maxamed ka dambeeyey sal alla alay wasalam nimanka axmediyada la yidhaahdo marka culimmada muslimiintu iskuma khilaafsana inay gaalo yihiin gabadh muslimadana xadhig uma qabto waxay gowracaanna waa bakti nijaasaah kuwa marka way ka duwan yihin nacam kaarka n h I f dhib ma laha waad isticmaali kartaan waa ka faa'iidaysan kartaan leanna waxa weeye wuxuu yahay inshuransiga iyo taamiinka nooca loo yaqaano ijtimaaciga ee dawladuhu sameeyaan ee dadka loogu adeegayo cidina ayna ka taajiraynin oo ka ganacsanaynin waaye yani waxa weye inshuransigaa noocyo badan leh nooc xaaraana iyo nooc bannaan marka nooca bannaan buu ka mid yahay waa ka faa'iidaysan kartaa waadna qaadan kartaa nacam aha sheekh nin gaala waxay u yeeshay xoolo markii ninkii telefoonkiisii wixii meel u cirib dhigaan waay marka xoolana cidaasina magaran marka xoolahaas rajo ma ka qabtaa inaad heli ya ma ka quusatay waa ka quustay sadaqee nacam haya ya airtime kan airtimeka loo qaato soo ma way goynayaan way dhigayaan sax yani waxa weeyaan markii oo rasiidku kaa madho ayaa waxaad u baahanaysaa inaad ka daynsato gacanta ku gadatana ma haysat hadhowna waxbay kuu saare kuwa jahaazi dhib ma laha oo balaayo sababta ku balaayo waxa weeye sababta ku balaayo aan idiinsi wax yar idiin caddeeyo shirkadda lacag maadan ka daynsanin shirkadda waxaad ka daynsatay service ma garat waxaad ka daynsatay airtime airtimeku lacag maaha
soma waa badeeco waa manfaco waa khidmad iyo service baad ka qaadatay shirkadda service-kaad ka qaadatay yaa deyn kaga qaadatay markaad cash siinayso oo shirkadda kaga iibsanayso iyo markaad deyn kaga qaadaysaa kala qaalisan marka waa inta ma garata markaad cash siinayso service-ka ay ku siinayaan wuu ka badan yahay markaad deyn kaga qaadanayso waa inta waxay ka dhigantoo kale adigoo dukaanka badeecada taala lagu yiri biyahan dukaanka yaala hadaad cash hadda isiinaysana waa 20 shilin hadaad deyniga qaadanaysana waa 30 shilin markaas waxa tirimay lacag ma haya 30 ma ku qaadanaya waa sax Soma 30 ka waa inay wax kale ku sii darmanino ma fahanteen marka wax beecul ajal baa la yiraahdaa dhib ma laha hadaad u fahanto shirkadda waxaad ka qaadatay inay lacag tahay kadibna lacagtii lacag ka badan inay ku saaratay fahamka ku soo baxay waa ribo soo saasma marka fahamku xagee ka khaldamay wuxuu ka khaldamay waxaad qaadatay lacag ma Soma service baad qaadatay kala qiimo badan markuu dan yahay iyo markuu kaash yahay kala qiimo badan waa inta dhibna ma laha naam xagga aanu yar aad hay يا هاي سيجارنا وان هاي سلادنا وان تفعل هاي وقت جيبا لك ها حاب جيبا هاي واعدو هاي سادس كانوا هاي روان ويسي في سلادنا ها وان قلنا هدي كاماي ها ما إلهي وحمك أقبله ما شاء الله وسؤال في عوض صفي عم وعبره سؤال waxa weeye qaadkan cuna sigaarkan waa cabaa salaadii waa la gaaray waa la aadaamay saajidkii baan imid waan weysaystay waan cadayday salaadii baan soo galay marka kuwa noocaas wadnuhu tikaama hayay buu wadnuhu wax ma laga aqbalay jawaabtu waxa weeye maqaadka iyo sigaarka xaraamnimadooda taasi waa mas'alo cunitaankooda iyo isticmaalkooda iyo ka ganacsigooda iyo kulli waa xaraan cad waay cunidooda ka ganacsigooda isticmaalkooda kulli waa xaraan laakiin ruuxa isticmaalaya ku ibtilaysan hadduu tukado salaadiisu way ka duwan tahay dambigu ku jiro مثالا سينايا كما عدبا روح مسلم الدلي وكس الدلي ومساجك صوغلو تكدي سلاد اسمه سعنيسا هاو سعنيسا هو الدنبي كان هو الدنبي وقوني قالي سلاد وتكني وواجب الله كلها صوما روح بالزينيستي زيني يقشن بوكوشرا خمرضو بعبيابا صوما قرن مركو ميرسدنا وتكنيا سلادنا وقوني خمرضنا وقوني صوما ويكلا دوانته marka tan waxay u baahan tahay cibaadada inuu hagaajiyo sax cibaadadiisu sidii la rabay ma aha oo hadii sidii la rabay ay ahaan lahayd way ka joojin lahayd waxan inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar waxanu dhan salaadu way ka goyn lahayd salaadiisa tabar daran laakiin dhihi mayno salaada laga aqbali maayo dhihi mayno soonka laga aqbali maayo ha cibaadaysto cibaadada haduu keeno insha Allah waa laga aqbali dambigaasina waa dunuub goonidooda naam غير سودان اكسين دور labadii salaadood ee soo dib dhigtay asku dirrabta teen ku bilaabaad rabta midii hore ku bilow Soma duurkii waad soo dib dhigtay waqtiga casarka isla tukanaysaa soo saasma marka casarka joogan hormariya mise duurkii horeeyay baan hormariya duurkii horeeyay tuko casarka dambeysay الشيء مغرب كوا صوت بدكتي حلي عشاء تكنيسا مغرب كهرمري عشاء كدم بيسي سيدي أو ترتيب صنايع أو ترتيب نعم اوكي مد هوري ganacsiga deymaha galay ninkii deymaha galiyayna uu carrayo uu telefoonada dansaday
waxay ku xidhan tahay in la helo ninkii wax khalday ee deymahan galay si xuquuqda loo kala caddeeyo haddii uu ganacsigu yahay magiciisa inay dadku la mucaamaloonayeen magiciisa khaladkuna ganacsiga ka yimid ganacsiga lagu leeyahay markaa haddii ruuxii meesha joogay uu tasarufaad khaldan isagu sameeyey tasarufaadkiisii khaldanaana wax ku yimaadeen markaa isaga iyo dadkii la mucaamalooday ayay wax ka dhexeeyaan laakiin keesku gooni ahaantiisa wuxuu u baahan yahay in loo fadhiisto oo la dhagaysto dadkan waxay sheeganayaan shirkaddii iyo dadkii lahaa la arko markaa kadib baa laga soo saari karaa dadkan xuquuqdooda yay ku leeyihin wax hadda la iska dhihi kara maaha leanna waxaa laga yaabaa dooday qabaan inay sidaa ka duwan tahay soo ma garan taa marka waa masale khusuumo weeye dhegaysi bay u baahan tahay ama masaladan dambe baabuurka aad ka furatay birta hadduu yahay baabuur laga tegay oon ciidina lahayn oo cid hadda sheeganaysa iyo midna ayna jirin oo la isaga tegay oo la nacay waad intifaacsan kartaa waa hanti la iska tuuray waayo soo ma hanti hadda la iska tuuro ninkii lahaa bannaanka uu ku tuuray haddaad hesho oo isagiiba iska nacay qaado ma garata marka waad intifaacsan ciidina u celin maysa ciidina kuguma laha leanna ninkii lahaa baaba iska tuurayba wuu nacay markuu nacayna adigaa ka faa'idaystay mushkila ma leh naam ya waa laba su-aalood midda hore waxa weeye ganacsigii sanadkii hore uu ka sakeeyey sanadkii dambe markuu soo wareegay intii sanadkii hore uu kaga sakeeyey ma dhaafin wax wuu faa'iido ganacsigu wuxuu soo saaray laakiin wuu cunayay intii sanadkii hore unbay joogtaa marka zaka ma lagu leeyahay waay jawaabtu waa ha intan hadda uu yahay hadduu gaadhayo qiyaastii zakadu ku waajibaysay waa lagu leeyahay hadduu hoos uga dhaco qiyaastii zakadu ku waajibaysana saka laguma lahaa qiyaasta zakadu kaga waajibto xoolaha ganacsiga waxa weeyaan 85 gram oo dahaba inuu suuqa ka goyn karaan xoolahaas hadday intaa iyo wixii ka badan xooluhu dhan yihiin zaka waa lagu leeyahay haddayna intaa gaadhaynin ama hoos uga dhacaanna saka laguma leeyahay saan ku garan karnaa waxaan ku garan karnaa dukaankaad qiimeyn xoolahooda kaba soo qaad xoolihii dukaanka markaad qiimaysa waxay soo baxday 200,000 oo shilin Kenya bay soo baxday suuqa dahabka tagtay waxaa tiri 85 gram oo dahab ii qiimeeya waxay noqotay 400,000 adigana maxaad meesha ku haysataa 200 sakama lagu leeyahay ma lagu mala ilaa ay gaadho qiyaastaasi 85 gram ee dahabka ilaa ay lacagtu gaadho saka laguma leh saas daraadeed kiyosyada yaryarka ah ee biilka laga raadsaday inta aan gaadhayn waxba saka laguma leh talabaad shardiga labaadna waa inay sanad soo wareego waa marka xoolaha aan faa'iidadooda aad cunaysi sanadkii dambe haddayna hoos uga dhicin 85 gram oo dahab qiyaastooda haddayna hoos uga dhicin sanadka labaadna waad ka sakeen sanadka kalena saasaad kaga sakeen ilaa ay hoos u dhacaan oo ay qiyaasta hoos uga dhacaan su'aasha labaad maxay ah sakadii meesha ka soo baxday adoo halkan jooga Eldoret ama Mayliine qaraabadaadii oo Mandheera joogto ma u diri kartaa waa jawaabtu waa ha asalka sakada horta waxa iska leh meesha xooluhu joogaan dadka jooga aslaan iska leh masaakiinta iyo fuqarada joogta iska leh asalka sadaqatan tu'khadu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim rayya manaydu laakiin culimadu waxay yiraahdaan laba xaalaba
sekada waa la wareejin karaa meel kale loo diri karaa xaaladii wax weeyaan meesha aad joogto xooluhu joogaan meel kale ka baahi badan inay jirto meesha joogto dadku waa roon yihiin waa iska roon yihiin laakiin meel muslimiintu gaajo ugu baaba'ayaan baa jirta waa la diri karaa markaa xaaladda labaad ee la diri karo waxa weeye dadka aad u diraysa inay qaraabo yihiin laana qaraabadu laba goor bay xaq leedahay xaq miskiinna xaq bay ku leeyihiin qaraabanimona xaq bay ku leeyihiin sooma silatun wa sadaqa buu ku tilmaamay qaraabo xidhiidhisnimo iyo sadaqa wada socoto marka hadday qaraabo baahan yihiin oo masaakiin yihiinna markaa waa loo diri karaa laakiin cadaalad sameeya waxaad samaysaan masaakiinta meeshan joogtay idinla joogtana wax ku tuurtuura masaakiintii xaggii jirtayna wax u dira kuwan ha qadinina macnaha allahu aclam waqtigi ma dhammaaday salaaddii soo lama gaadhin su-aashan ugu dambaysa insha allah بارك الله إن شاء الله خيرا كل جديد tanaa ugu dambaysa haye ya haye waxyar su-aashaa dhigay su-aal muhima waay su-aal muhim ah oo aada ii dhaanfacaysa waay dadka qaar waxaa ku dhaca sida wiilku sheegayo waswaas baa ku dhaca shaytaanku waa cadow marka hore hadduu ku guulaysto inay cibaadada aada bannaanka inaadan imaaninba oo cibaadadaba kaa hor istaago wuu samayn hadduu yeeli waayo ood ka guulaysato ood cibaadadii soo gashana cibaadada dhexdeedu kuugu imaanaya wuxuu samaynayaa inuu cibaadada kaa waswaasiyo marka waswaasku waxa weeye ruuxii wuxuu isleeyahay ku dhahaya shaydaanka ku dhahaya wuxuu ku leeyahay shay aad qabatay wuxuu ku leeyahay si sax maada u qabanin ee hadda sax soo ma waad weysiisatay wuxuu ku leeyahay weysadaada waxbaa ka khaldanaa markaasaas dhihi waa run ee sax salaaddii baad gashay allahu akbar baad tidhi wuxuu ku leeyahay allahu akbartaad tidhi kaale kaafka amaad qaladay agow kaafka maada sixini bal ku noqo akbar markaad dhahdo haddana wuxuu ku leeyahay maya ra'daa haddana wax kaa khaldanaya haddana ku noqo mar kale wuxuu kaa soo gelaya ku leeyahay maya allahu akbar waad kala goysay xidhiidhi allahu akbar marba meel buu kaa soo gelaya mar wuxuu ku leeyahay waxbaa kaa soo tifqay neef baa dabada kaa timid mar wuxuu leeyahay xubinkaaga taranka waxbaa ka soo baxay yaa weysadii baa kaa jabtay dad fara badan baa cudurkaasi ku dhacaa waana cudur khatar ah cudur halisa waay ruuxa hadduu ku dhaco dadka marka dambe wuxuu gaadhsiiyaa waalasho junuun wuxuu gaadhsiiyaa inay cibaadadii intay ku adkaato marka dambe uu isaga tago cibaadadii iyo diintaba isaga tago wuxuu gaadhayaa heer aadan xamili karayninba ma wadi kartid waana meeshuu doonaya shaydaanku inuu dadka gaadhsiiyo waxaa la rabaa marka waswaaska noocaasi mar wuxuu kaa bilaabayaa cibaadada iyo dahaarada iyo salaada iyo marka laga tago mar tawxiidka iyo caqiidadu kaa gelaya soo ma waa ka nabigu noo sheegay sal alay waslam wuu kuu imaanaya markaasu wuxuu ku leeyahy samada yaa abuuray allah dhulka yaa abuuray allah adigaa ku abuuray allah alla yaa abuuray buu ku dhihi soomada garan marka waxaad tidhaahdaa ilaahay baan rumeeyey waswaaskan iska xidh maxaynu u baahannahay marka waxaan doonayaa inaan dhowr idin siiyo talooyin oo dadka waxaas ku dhacaayay sida isaga daaweyn lahaayeen kow talada koowaadi waxa weeyaan horta ilaahay magangalkiisa iyo inaad ilaahay magan gasho ku dadaal وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دعوين لقاق حرسي حداد جرا دعوين كابدي وحد آدو آخر ستا سورة برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
ayadoo dhan waxay ku wasaabsan tahay waswaaska shaytaanka oo ilaahay ka magan galayso soo qodob maaha qodobka labaadi wax weeyaan warka uu kuu sheegayo ha rumaysanin saxna ha isdhihin intaad rumaysato sax ha isdhihin beeni waa qodobka ugu muhiimsan waay nabigaana inagula taliyay sallallahu alayhi wasallam warkiisa beeni wuxuu rasuulku sheegay sallallahu alayhi wasallam adoo salaada ku jiro ku iimaanaya dabadu ka afuufaya markaasuu ku leeyahay neef baa ka soo baxday rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wasallam salaada ha ka bixin warkiisana ha yeelin ilaa aad ama shanqar maqasho ama ur dareento ya bariyaha hoostooda dhexdoodu ka taabanaya ilaa waa wax balaaye qabo oo muxuu ahay uu dhex jiraaba Soma bariyaha dhexdoodu ka taabanaya markaasuu ka dhigay wax ka soo baxay xubinka taranka Soomaaliya waxa laga yaabaa inuu caliye marmariyo ya uu yiraahdo wallahi kaadi baa ka soo daadatay war salaada ka baxo soo istijeyso haddana markaa soo istijeyso waa kan wad qoyan tahay wali oo maanta dhan masquul baad ku jiri saas daradeed nabigu kii waswaaskaas ku dhacay wuxuu yiri markaad ma ka soo baxdo musqusho soo istijeysato biyaha intaad qaado meeshan oo xubinka ku aadan maartay ku sayd meeshan biyaha maartay ku qo si hadhowta markuu ku yiraahdo war waad isku kaadiday waxba ka soo baxay aad u tiraahdo mehe waa biyaha isku daadiyay war waa beentaayo biyahan anigu isku sayday way saad u dhaxdo Soomaalida garan macna waxa laga wadaa ujeedadu tahay hadaad isdhaahdo waa runtii waxan sax hadaad isdhaahdo meesha way meesha ku dhax fadhiyo waa saxdii buu hadana kula sii socon hadana uu kula sii socon hadana uu ku sii durkin hadana uu ku sii wadi marka dambe diintu kugu adkaynaya saas daraadeed warkiisa rumaysanin soo kuma dhin waxba ka soo baxay yeel ka dhig ka soco soo ma rumaynin asixin soo kuma dhin salaadii ma xidhmin Allahu akbar taadu ma xidhmin yeena xidhmin waligeed ka soco dadka qaar buu faatixada u dhax fadhiisanaya markaas maanta waxaad arkaysaa iyagoo ku hay alhamdu الحمد قال تحيات كل التحيات هل كاسو كودا فديا سوما marka waxa la rabaa warkiisa beeni harumaysan wax sax haysdiin ka soco ilaahay ka magan gal ka xirsi xidho ma garat markuu arko inaadan dhageysaneen waa ku daynayaa laakiin balaayo waxay ku dhax fadhidaa markaad istiraahdo waa runtii waxba khaldan iska sax marka tiraahdo halka way meesha uu kaasi luminayo qodobkaasi marka dad fara badan waayahan waa ku dhac cudurkaas meelo badan uu dadka ka galaa dadka qaar qoysku ka galaa dhalinyaro aad ku ruuxay yimid leh sheekhow hadal kan ku hadlaba waxa iga dhaadhacayso inaan xaaskaygu furay subhanallahi haddaan dhaho waxaan u fahmayaa naagtaydii waan ku furay inaad ولكن ماذا رأيتين؟ هذا الحمد لله ده ناكتدي وفرنتا هنا يبقى نوها يستابع الشيخ ما يغفر ما يوحنا نقول هو كافر معايا حتى ده تكور دي ده وفرنتا هو كافر معايا لأنه واحد يصير علماء قاركود ليهين والنوع الجنون كمد والنوع والدة كمد واحد روح النوع عصو كلام هذا الكيس الله ما بقى طبعا مركب هي روحه جارسين يا هالي السؤال oo ruuxa uu diinta ka saaray marka dambe marka iska xid inta dad dhowdahay oo fududahay la dagaalan qaabkan isaga daawo insha Allah ta'ala wafaqakum Allah wa jazakum Allah khairan ila tawfiiqahayna waafajiyo khairan Allah inoo sahlo ilaahayna tabaaraka ta'ala adduunyo aakhiraba hayna barakeeyo meeshiinan iyo xiriyahan Allah idinku amaansado ilaahay idinku amaansado midnimada iyo walaalnimada ilaaliya insha Allah wada jirka odayaasha ka dambeeya odayaasha warkooda hala maqlo reeraan oday lahayn waa reer ba'ay reeraan oday lahayn waa reer ba'ay Soomaalina hoggaanka dhaqanka iyo odayaashu waa muhiim ya meeshan muxuu ahay waxa degantihiin wadan muxuu ahay dalkeena iyo deegaankeena waa ka soo fogaanay Soomaa waxaan la deganahay darisku waa gaalay u badan yihiin hadii marka isku duubni iyo ismaqal iyo ixtiraam iyo odayga iyo sheekh iyo hadaydan ismaqalin gaar ahaan markay siyaasaddu timaado ama hunguri yimaado ilaa Soomaali meeshay u baaday halkaas Soomaali waxa biyay waa kursi iyo hunguri
soomaa mar kelimadeeda ugu dambaysa waxa weeye midnimadana ilaaliya ismaqalkana ilaaliya odayaashana maqla kala dambaynta ku dadaala wada jirka ku dadaala sidaasaad ku jiri kartaan iskuna ilaalin kartaan masaalixdiinana ku ilaashan kartaan tawfiiqda Allah idin waafajiyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh